haweeney 123 sano jir weli gabar ah oo baadi goobaysa nin daryeela oo ay caruur u dhasho isla markaana ay waqti wanaagsan wada qaataan. Haweeneydan ayaa lagu magacaabaa Sirisaya Nihikaranjumba. Waa haweeneyda oo 123 sano jir ah, waana gabar gashaanti ah in ay tahay marka laga tago, maadaama ay gabarnimadeeda ilaalinaysay tan iyo nolosheeda. Waxa ay haatan doonaysaa ka hor inta aysan dunida macsalaamayn in ay hesho nin daryeela waqti la qaata isla markaana ay la raaxaysato. Sirisaya ayaa shaaca ka qaaday sababta ay u guursan weysay, iyadoo xustay in ay taasi keentay dhaqanka xun ee tuuladeeda ka jira. Dadka deegaanka ayayna u sababaysay in ay guur la'aan xilligan ku soo gaarto, maadaama dumarka deegaankeeda laga yeeso xushmad badanna aysan ku lahayn, sidoo kalena aan dumarka deegaankeeda loo ogolayn in ay ragga soo dhex galaan amaba ay u soo dhawaadaan. Dhanka kale, waxa ay xustay in cabsi badan ay ka qabtay ragga deegaanka, si kastoo loogu soo shukaansi doontana ay ka baqanaysay ragga deegaankeeda, maadaama haweenka iyo ragga deegaankeedu ay kala xirxirnaayeen, dhaqankooduna uu sidaasi ahay. Haddana iyada oo shukaansi soo samaysay ayayna u suurtagelin in ay guursato mid uun ka mid ah raggii guurka u soo bandhigi jiray. Cabsi ay ka qabto darteed ragga, taasina ay soo gaarsiisay 123 sano jir, caruur iyo nin aan yeelan raaxo adduunna aan soo arkin. Sirisaya ayaana soo baraarugtay iyadoo waayeel noqotay, xeere iyo fandhaalna ay kala dhaceen, raggii dhanna aysan rabin, nin u soo haasawo tagana uusan jirin. Balse waxa ay tilmaamtay in qof kasta oo soo socda amaba gurigeeda u soo socda, marka ay aragto in ay u qaadato nin u soo haasawo tagay iyadana doonaya, balse qadar yar kadib ay wax waliba isbedelaan oo maladeedu ay beenowdo, oo haatan ay aaminsan tahay in aysan waxba faa'iido u soo kordhin ilaashadeedii gabarnimada oo ilaa iyo haatan ay la soo gaartay, sidoo kalena aysan ku naafin. Ugu dambeyn, 123 sano jirtan haweeneyda oo aan weli guursan isla markaana sheegtay in aysan weli nolosha ka quusan, ayaa waxa ay dalbanaysaa nin si bilaash ku guursada oo nolol wanaagsan ay wada qaataan, daryeelna ay siiyaan, ayadana daryeel wanaagsan uu ka heli doono, balse aysan doonaynin in ay dunida macsalaamayso iyadoo weli gabar ah. Sidoo kalena ay dhibaato weyn ku tahay in iyadoo aan nin guursan in dunida ay sidaasi ku macsalaamayso.